heshiiskaa badda lagu bixiyey way waxba kama jiraan cid alla cid badda Somaliland fasixi kartaa waa hanti ummadda Somaliland ay leedahay khaasatan haddaan ree awdal nahayna marnaba ma aqbalayno baddayada in Itoobiya laga iibiyo ama laga kireeyo ninka islaantaada doonaya intaada looguma daraalayo waxaba xaaraana Itoobiya maanta ma ay dhalin inta jirtaba waxay ku taamaysay dhul Soomaaliyeed inay qaadato cidda u fududaysay baaba dambiilaana u qaba cidda u fududaysay hantida ummadda Somaliland ay leedahay ninka doonaya inuu qaato in laga kireeyo iyo inuu qaato kiran meesha wax la yiraahdo ma jirto been iyana ummadda loo sheegay ixtiraaf baan ku bedelanay waxaad arkaysay la taliyihii ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu inii cadeeyay ummadda Somaliland waxaan u sheegaynaa inuu u cadeeyay inay marka dhulka hantiyaan ay degaan ay la wareegaan ay ictiraafka u barbaari doonaan Somaliland war maskaxdiina ayaa loo ciyaari malaan ummadda Somaliland maskaxdiina waxana maaha wax gala iibiyo kiramidna maaha Somaliland waxay qaaday wadadii burburka markaynu run ku hadlayno mas'uuliyadda cidda maanta u haysa waa cidda baddii Somaliland ay lahayd u gacan gelinaysa ciddii doonaysay damaca ahayd markay sidaas tahay darree awdal nahay min dad la dheelsan karo dadkii xabashida hilibka cayrinka ku kalifay baa haylinay bartaan cunaan gaajada Axmed Gurey baa ka soo jeeda dad taariikhdooda iyo hantidooda la tirtiri kara mani waa meeshii ay ka soo gashay saylac iyo lughaya diinta islaamku Afrika markaynu run ku wada hadlayno wax maanta taariikhdooda timid ma ilaa waqtiga ilaa maanta dadac baa Itoobiya kaga jira anigu waxaan qabaa marka cidda u fududaysay ee doonaysa in Itoobiya ku wareejiso ayaa dambiilo qaran qayn wadana ah markaynu run ku wada hadlayno marna ma aqbalayno intuu qof naga noolyahay ibada laga kireeyo cidii damaca ay doonaysa ee qaadanaysa ee xoog ku qaadanaysa in laga kireeyo marnaba ma aqbalayno lagana iibiyo caalamka kale in damac kaga jiro laga kireyn karaa waa inaal gashan kalaan laakiin ninka hantidaada doonaya ee xoog baan ku qaadanaya waliba kale ku cadeeyay inaad tiraahdo heshiis baan la soo galo ictiraaf baan ku bedeshay oo ummadana been loo sheego war dadka Somaliland kulloona waxa la beenaya la inaga iibin ra'iisul wasaaraha la taliyaha qaranka amniga ee Itoobiya waa kiidin cadeeyay leeyahay dadka beesha dhexe ku nool la wuxuu inba ka siyo marka ictiraaf la yiraahdo war ictiraaf dhulugma bedeshadii waxa caalamku wax la kala bedishaa Itoobiya waqtigii reserve area imika Soomaaliya markii la lahaa 100 mitir baan ku siinaynaa dhulka soo wareeji waxay diiday inuu soo wareejiso markaas adina la inagu sheekeynayna waxa ku bedelanay ictiraaf waxba ma aqoonsan karta bee shan wadan ba caalamka wax la qoonsada jimcada qurumaha ka dhaxaysan ka saxiixi kara oo shanta veto power kale waxay wataan in isaguba ku dhaawin baan ictiraaf ka soo siistay war ma aqbalayno haddaan ree awdan lahayd qof naga hadhayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi xildhibaan awdal waa Somaliland dadka Somaliland way soo dhaweeyeen heshiiska ay xukuumadda Somaliland la soo gashay dalka Itoobiya awdalna waa Somaliland maxaad ku diidan tahay awdal ma meel gooniye ku taala iskaas maba jiro waxa ku cadeeyaan ku la taliyaha amniga qaranka meedaan haynin inuu yiri marka dhulka gacanta loo soo galiyo ee la wareegno ayaan ixtiraafkeeni baarbaari doonaa heshiis baa waxaas mudaharaad baa awdal ka socda arrintan miya taageersantahay adigu xaq bay u leeyihiin in hantidooda iyo badooda iyo dhulkooda difaac waxaan ka codsanaynaa barta YouTube-ka Facebook-ga iyo TikTok-ga inta wayna share noo dhado subscribe noo saarta YouTube-keena